Bismillahirrahmanirrahim. Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Saaxiibayaal meel walba oo joogtaan iyo si walba muuqaalka iyagu idiin soo gaarayo halkaad inaga daawanaysaan waa bartaan YouTube-ka ku leenahay run sheeg. Saaxiibayaal qodobada ugu waaweyn aan warka idinkugu haynana waxaa kamid ah hogaamiyaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo culays xoogan uu ka haysto inuu u tartamo xilka madaxweynaha Soomaaliya isagoo ah madaxweynaha Puntland. Dowladda Soomaaliya qadar oo kala saxiixday heshiis afgarad ah iyo wafdi ka socday dowladda federaalka ee Soomaaliya shir uga qayb galaya Imaaraadka Carabta. qodobadaas iyo qodobo kale ayaan saaxiibadaynu ugu xiran oo idiin soo gudbin doonaa hadduu Rabbi raali ka noqdo. fadlan haddii aad nagu cusubtihiin waxaan si naxariis leh idinkaga codsanaynaa inaad subscribe noo saadhaan, like na inagu dhiirigelisaan, gamaleelka furataan si warbixinadii ugu dambeeyay aad u heshaan idanka alle. saaxiibayaal sida hordhaca warkaygaba aad ku daawateen haddaynu ku bilowno hogaamiyaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa la soo warinayaa inuu culays xoogan ka haysto inuu u tartamo xilka madaxtinimo ee Soomaaliya isagoo ah hogaamiyaha Puntland. hogaamiyaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo dhawaan ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimo ee Soomaaliya ayaa la soo warinayaa inuu weli quudareynayo inuusan iska casilin xilka hogaaminta maamulka Puntland oo sidaas ku gala tartanka madaxtinimo ee Soomaaliya. cashe uu dhawaan u sameeyay xildhibaanada laga soo doortay Puntland ayuu Saciid Deni u sheegay inuu rabo inuu villa Soomaaliya u tartamo isagoo ah hogaamiyaha Puntland haddii uu waayo xilka madaxweynaha Soomaaliyana waxa uu sheegay inuu rabo inuu ku soo laabto hogaanka maamul goboleedka Puntland. inkastoo xildhibaanada uu boobay kuraasta ee kulanka fadhisay haddana taas kala doodi karin ama aysan taas kala doodi karin macquulna aysan ahayn. haddana waxay dadka kulankan ka warbixiyay hadalkaasi ka dhex fahmeen walaaca hogaamiyaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ka haysta in uu ku guuleysan karo doorashada villa Soomaaliya. kooxda Waaranjane Saciid Cabdullaahi Deni ee taageersan ee difaacaya qadiyadda waxay soo xiganayaan Allah u naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo sidaas sameeyay kol hore isagoo Puntland madax ka ahaa una u tartamay xukunka Soomaaliya. laakiin waxay kooxdaasi islowsiinayaan 18 sano kadib halka ay maanta Soomaaliya joogto ama xitaa halka ay Puntland joogto. xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Puntland ayaa dhawaan laga soo xigtay inay hogaamiyaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni xilka ka qaadi doonaan haddii uu xamar uu boqolo isagoo aan iscasilin, balse midaan laga boodi karin ee Saciid Cabdullaahi Deni ama musharax kasta sugaysa waa shuruudaha ay soo saari doonaan guddiga baarlamaanka ee qabanaya doorashada xilka madaxtinimo ee Soomaaliya, kuwaas oo ay dhici karto in ay keenaan shuruud ah in codsiga musharaxnimo laga qaban doono qof aan xilka lahaynin. damaca hogaamiyaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni in uu Puntland sii haysto ayaa dhinaca kale xoojinaysa wararka ah inuu Deni rabo inuu qiimeyn labaad ku sameeyo musharaxnimadiisa marka uu xamar tago. qiimeyntaasi oo ah in haddii uu madaxweyne Farmaajo ka qaadi karo meesha in uu xoojiyo qofka u dhow ee ka qaadi kara talada Soomaaliya madaxweynaha qaranka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, balse ma muuqato hogaamiyaha Puntland inuu xilka amaba hogaanka ugu sareeya dalka uu kala wareegi karo madaxweynaha qaranka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. isimada ka soo jeeda maamul goboleedka Puntland ayaa iyagana la sheegay in ay wadaan abaabul xoogan oo ka dhan ah Saciid Cabdullaahi Deni. abaabulkaasi mid waa in Puntland degdeg ay u tashato marka uu baxo hogaamiyaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo aan laga aqbalin in uu tartamo isagoo xilka haysta, midna waa in ay xamar uga daba tagaan oo ay Soomaalida u sheegaan Saciid Cabdullaahiga rasmiga. Deni iyo hogaanka dhaqanka Puntland ayaa isla gaaray meeshii ugu xumayd oo ay isla gaaraan hogaamiye Puntland ah iyo dhaqankiisa taariikhda. hogaamiyaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa dhawaan ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimo ee Soomaaliya, laakiin waxaa buuq xoogan lagu furay sababta uu istaagay xukunka uu ku sheegay inuu rabo inuu kaliya Farmaajo dhaafiyo uusan lahayn ajenda kale oo siyaasadeed. dadka siyaasadda falanqeeya waxay hadal jeedinta koowaad ee hogaamiyaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ku qeexeen nin aan wax qorshe u hayn Soomaalida ama aan aragti sax ah
ka haysan waxa uu taagan yahay ama ku kalifay inuu isu soo taago xilka madaxtinimo ee Soomaaliya. Kooxda madaxweynaha qaranka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u arkaa fursad aan marnaba la diici karin inuu Siciid Cabdullaahi Deni oo tartan la galo madaxweynaha qaranka, iyagoo aaminsan in madaxweyne Farmaajo uu xukunka mar kale ku soo laabanayo haddii uu Siciid Cabdullaahi Deni tartankaasi u bareero. Qodobada kale aan daawadayaal idiin haynana waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya iyo Qatar ayaa kala saxiixday heshiis isafgarada. Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Sare mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulle oo ku sugan magaalada Dooxa ee dalka Qatar oo uu ka qaybgalayo shirka madasha Dooxa ayaa waxa uu heshiis isafgarad ah oo lagu xoojinayo iskaashiga dhanka waxbarashada ee dowladaha Soomaaliya iyo Qatar kala saxiixday hay-adda Qatar Fund. Heshiiskan isafgaradka ah oo ah mid lagu taageerayo waxbarashada ubadka Soomaaliyeed ee aan fursad u helin in ay aadaan dugsiyada ayaa sidoo kale kor loogu qaadaya tayada waxbarashada dalka iyo la dagaalanka heerka jahliga ee bulshada Soomaaliyeed. waxbarashada ubadka Soomaaliyeed waa mudnaanta koowaad ee dowladeena. Heshiiskan is-afgaradkaahi waa mid aan ku dardargelinayno dadaalka aynu ku bixinayno in aynu ardayda Soomaaliyeed gaarsiino waxbarasho tayo sare leh, sidoo kalena aan kaga fogaano in jahli badan uu soo gaaro xilliga waxbarashada ay seegaan dugsiyada, ayuu yiri wasiiru dowlaha waxbarashada mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulle oo ka hadlayay saxiixa heshiiska isafgaradka. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sanadihii la soo dhaafay dadaal buuxa gelisay kor u qaadida tayada waxbarashada dalka, iyadoo oo kor loogu qaadayay miisaaniyadda waxbarashada lana diyaariyay manhaj waxbarasho oo ka kooban dugsiyada hoose, dhexe iyo sare, sidoo kalena waxbarasho lacag la'aan ah loo fidiyay kumanaan da'yar Soomaali ah. Munaasabada lagu saxiixayay heshiiska isafgaradka waxaa sidoo kale ka qayb galay danjiraha dowladda Soomaaliya u jooga dalka Qatar mudane Cabdirasaaq Faarax Cali Tsaan, la taliyaha wasaaradda waxbarashada mudane Siciid Jaamac Guuleed iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya. Qodobada kale aan saaxiibayaal idiin haynana waxaa ka mid ah wafdi ka socda dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa shir uga qayb galaya Imaaraadka Carabta. Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Hawada xukuumadda Soomaaliya oo ay weheliyaan agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo maareeyaha hay'adda duulista rayidka ayaa u ambabaxay dalka Isutaga Imaaraadka Carabta. wasiir Durraan Axmed Faarax iyo wafdigiisa ayaa ka qayb galaya shir la xiriira duulimaadyada oo ay ka qayb galayaan qaar ka mid ah wasaaradaha duulista rayidka ee dalalka adduunka iyo gudoomiyaha ururka caalamiga ah ee duulimaadyada hawada. Shirkan ayaa looga hadlayaa horumarinta duulimaadyada rayidka, iyadoo Soomaaliya ay ahmiyad weyn u leedahay ka qaybgalka shirkan oo ka dhacaya magaalada Dubai ee Isutaga Imaaraadka Carabta. Soomaaliya ayaa tan iyo markii ay la soo wareegtay maamulka hawadeena dadaal ugu jirtay inay horumariso duulimaadyada rayidka ee isaga kala goosha gudaha dalka iyo dibadda. waa hagaag saaxiibayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa warkii aad ka daawanayseen Runsheeg TV. fadlan haddii aad nagu cusubtihiin waxaan si naxariis leh idinkaga codsanaynaa inaad subscribe noo soo adhaan, like-na nagu dhiirigelisaan gamaleelka furataan si warbixinadii ugu dambeeyay aad u heshaan idinka alle.